annagu مثلا hirshabelle haddaan nahay xuduudan ku naalla yani aadan u soo dhaweynaynaa in muxuu ahay la furo kastamka feerfeer in meeshaas ay noqoto meel laga ganacsado oo hadda intii xero military ay mataqaana ku ooli lahayd in kastam ku yaal immigration ku yaal maalintii 100 baabuur gudubto 100 baabuur kale soo gudubto dadku isdhex maro qofkii mustaxiil ka soo tago beledweyne yimaado goday iyo beledweyne jidka loo sameeyo dekada cadala la dhiso halkaas tareen ka baxo konteenarada feerfeer la geeyo halka Itoobiya looga sii daabulo yani intaas shaqo laga helo mustaqbal wanaagsan laga helo runtii hadii laga miro dhaliyo waa cusub oo u bariyay ayaan u arkaa in Geeska Afrika anagu waxaan aaminsanahay kuna howlgaleena afartaas dekadood dekada ugu horeysa inay tahay dekada cadale oo hirshabelle laga dhisaayo waxa noo qorsheysan oo anagu feasibility study-geedii ka sameeynay in dekadaas ay noqoto logistic mataqaana center logistic ama logistic hub inay dekad noqoto in halkaas qad internet uu ka soo dego internetkaas halkaas laga qaado halkaas muxuu hirshabelle laga siiyo Itoobiya loo sii suuq geeyo waxaan rajaynaynaa meeshaas in jid laga bixiyo jid tareen in laga bixiyo in container terminal weyn oo mataqaana dekad qalalana in feerfeer laga dhiso in muxuu ahay korontada Itoobiya oo aad raqiis u ah aan soo iibsano oo hirshabelle muxuu ahay hadda korontada waxaan gadnaa $1 shirkadaha ina ka sii iibino intaan anagu maamul ahaan aan korontada soo iibsano shirkadaha distribution-ka ay sameeyaan runtii annaga hirshabelle ahaan gaar ahaan waxaan meeshaas ka aragnaa dana waaweyn rajo weyn wanaag weyn horumar weyn oo Soomaalida dhinaca Soomaaliya degan iyo Soomaalida dhinaca xuduudda dhinaceeda kala deganba